والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهديس وهذا المركز هذا قصة لابني أنا جو إسحسسنا وناقة إسفرين حمد إسكري بين إلهي سبحانه وتعالى حكبري ضمانت من إلهي ونقدر يكوك انتفاع وحلا شيء. waxaan noo socotay xalaqo ama silsila noo socotay aan kaga hadlayno akhlaaqda teeda wanaagsan waxaan ka soo qaadanay runta ayaan ka soo qaadanay ra'sul akhlaaq waxaan ka soo hadalnay xalaqooyinka hore as-sidqu ma'a Allah subhanahu wa ta'ala maanta waxaan ka hadlaynaa sidoo kale qayb kale oo ah as-sidqu ma'a nafsi qofka muslimka waxa la doonayaa markasta inuu naftiisa run u sheego maxaa yeelay nafta hadaan runta loo sheegin xumo ay ku amraysaa ilaahay quraanka wuxuu nagu leeyahay inna nafsa la amaratu bis-suu nafta xumo ay dadka amartaa haddii aan la tahdiibinin ama aan la laylinin waxay keeni kartaa inuu qofka ay jar kala dhacdo shahawaadka aad arkaysaan nafta markasta waxyaabaha loo ay sababi karto waxaa kamid ah kibir isweyn inay keento ay umaysa inay dadka ay ka weyn tahay walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala markasta wuxuu nala yidhahaa wafii anfusikum afalaa tubsiruun in lagu ciqaab qaarto naftan oo aan kibirkee markasta iyo xaqdiga iyo xasadka waxyaabaha ay markasta oo nafta ay amrayso naftu waxay jeceshahay anaani wey wax kasta iyada inay lahaatay doonaysaa waxay doonaysaa nafta inay dadka iscajabigeyso iyada iscajabigeliso malidaalika qofka hadduu naftiisa runta u sheegin oo been ku hayo nafta meelay kala dhacaysaa meelay kala dhacaysaa waxaa laga yaabaa markasta xumaanta ay amraysaa maxaa yeele nafta haddii ay marna qofka muslimka ah nafta hogaanka u qabatana نار جينيسا لذلك وحده جرين رحم الله امرأ عرف قدر نفسه ووقف عند حده نفط ميل بلا حد لا ذا حد كاس إن استاجيو لجو استاجيو نكاس إلهي أون حريستو نكي أوادي نفتي سوحي تهي حيالي نفط مركي آد تستد وحي تهي أصل كذا أون قات محايد أهد من ماء وحايد مهينة أهد من أن وحايد مضغة أهد قبل يرو عدد أهد بي أورايا يا لقاسمي من ماء دافق waxaas markii asalkeeda loo celiyo nafta way qaanaysaa laakiin markuu qofku naftiisa uu farax ka daayo quruuray galaysaa walidaalika waxbay ku keedinaysaa waxay leedahay adiga ka cilmi badan adiga ka laan dheer adiga ka qurux badan ama dumar ha ahaato ama rag ha ahaado wax kasta wuxuu adiga ka maal badan adduunka dhan ana haya furuha ana haya waxaas nafta dadka ay ka dhaadhicinaysaa marka taas waa tan la diidayo oo la hayo nafta markasta xumi ay dadka amraysaa xumida ha laga ilaaliyo haddii xadkeeda aad joojisid marka aad hogaanka u qabatid busuri markuu burtaha ka hadlaya wuxuu nafsu ka tifli in tuhmiluhu shabba calaa xubbi radaaca wuxuu leeyahay naftaan waa caruurtoo kale oo waa la laylin karaa laylis ayaa loo samayn karaa oo cunuga yar oo naaska laga jarayo hooyadiis iyo aabihiis ay ka jarayaan haddii uu ka jaraan nafta cunuga ay ka jaraan naaska waa ka go-ayaa laakiin hadday ku daayaan cunug waxaa laga yaabaa in uu muddo asagoo dhowr sano jira 4 sano 3 sano uu yidhaha naas inaan nuugaan doonaya walidaalika naseexay kusii karta oo qalad ah nafta in la tarbiyeeyo oo la duleeyo markaas la duleeyo la yidhaha man ant maxaa tahay nafay ma dadkaa ka fiican tahay ma dadkaa ka wanaagsan tahay ma waxaas in la dhaho dadka adaa ugu liito nafta in laga dhaadhiciyo maxaa dhacay nafta waxay wuxuu leeyahay walidaalika ilaahay subxana wa taala dadka oo jannada ugu ballan qaado wuxuu leeyahay ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha an-nafsa can ilhawa undur wuxuu leeyahay ilaahay ninka ka cabsada oo cabsida ilaahay la yimaada laakiin saas kelima janno ku galaya maya wuxuu ku galaya wanaha an-nafsa can ilhawa naftan in hawa laga raaca maxaa dad badan waxaa arkaysaa salaad waa tukanayaan waxaa ku jecel xubba sultaa jecel kuraastay jecel yihiin wuxuu jecel yahay fadhigin loo istaago jecel yahay diin kuma yara waxaa arkaysaa masaajidka salaaduhu ku tukadaa maqaama rabbi ilaahay waa ka baqay laakiin haddana naftii oo laylin waaye walidaalika nafta haddaad laylinin jannadaad oo adag tahay maxaa dhacay nafta waxay ku sheelay xubbi sulta walidaalika hadda soomaalida haddaan nahay nafteena ma laylinin maxaa yeele dadka dhan waxay aamineenba ninka kursiga koro ayaa wax heli kara ninka kursiga kale ayaa la amaanaa reerka uu madaxweyne uu qabiilkooda ka dhasho oo yidhaha madaxweyne u soo baxo reeraha kale inuu ka fiican u maleeya reerkii mansab helo waxay leeyihiin anagaa haysana kii wasiirka maaliyadda laga dhigo anagaa fiican mushkiladana haysato waxaa weeye
نفتين أي رعنة سومالها دانه ولذلك النفط وحوي إن لحل له هلا ولا ليليا محلقة ليلينيا وحلقة توبر النفط ألقى جوين حب سلطة وحال رأينا ده أوف سلطة هذا مسؤولية وي عليه ورنا نفي هاي حكم كان كعريسد إلههم أقصون تهي إنه ذاتك مسؤولك كتاهي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته ننكس وحبال ويدين دونايه فالإمام الراعي والنفط إذا ما أنت أنا أعماشها السماية إلهي سأقول بحث الله وهو حلقة يا بعد دمبيين وفرب ذنيا أمد أصلا اللي ويدينا دي جودي نينك هو إذا أمر رعت أنا ما اللي ويدينا يا أن النفق نقول كلهم أنا ما اللي ويدينا يا مركو نفط أساس وشيكتيد أساس أقول لي لسيد نفط وحواي وهو جان سميسا مركز وهو جام سينسا نفط وهو جام سميسا وعبسية جليسة مركز نفط وحلا هذا وروحها كجوك لكن مركز تراهيد هلو أمانه أن دتك أكوها قوس عبيان سعادة وزير هلو يراهو معالي فقامة الرئيس هلو قلده ما أنت ما عاسني مركز تراهيدين نفط وكحوق بدس أجو مركز وحي كتستي وحيابها الدنيا ذاتك أي كتستكليه waxay ku tustay waxaan yar oo soconayo muddada gaaban ka tagaysay waxa isweydiin naftu waxa ku leelaysaa meeqa madaxweyne ka horeysay hebel waa dhintay Soomaha calanka uu huwinay muusiga loo tumay markii darajada ugu sareysa dadka waxa calanka hoos loogu dhigay hebel calanna lagu weeray ala kor lagu weeray ka bacdi waxa weeye godka markii laga calanka ma la galay calanka waa laga soo siibay asagii amarkiisa galeen marka nafsu inaan saas u sheegno haddii aan saas u sheegin tartankan oo kuraasta aan ku tartamayno oo qabiil kasta wuxuu raba asaga oo wax kasta oo asaga uu rabo inuu qaato oo inuu dadka ka aqli badan u maleeyo inuu dadka ka weyn yahay u maleeyo nafta quruur ay gelisay marka walidaalika ina iskaaga digno waa anaga aan ahno war caaqibadeed maxay tahay naftu waxyaabaha lagu digo waxa kamid ah in la tuso waxaan caaqibadooda wax kasta waxay leeyihiin wax oo waqti leh iyo wax cirab leh marka ina naftu waxa lagu leeyahay in cirabta la tuso aliilah halkay ku dambeey kartaa war dadka ka horeeyay boqorada ka horeeyeen madaxda ka horeeyay wasiir hebel خاصة صومال دانا أنا نمشي ذو بس كسهل ما قال له وزير كور أهاجري قبل وزير وأهاجري برلمان وأهاجري والدي له ما أنت حولتك هورتيس بس ويديس وماذا أعددت أذم حد يرصتي ولي وحي كل أنت ليك ما أدت أنت وحلي كفى بالموت واعدة والصومالية هدي أن جيريدا فرها بدن أكو أنا قادوين ما حكوا أنا قادنينا مع إنك بركو أركنيس صاحب كيس وشغل أنتي وحرر إنه يفر إلى الله إنه إله الطوبك هنا أو إلى ولا ليالو أنا هوشان موجود كرو إلهي سبحانه وتعالى كعبسنا تلكي وإيسع بنايان وإيسو دوينايان لكن وحي يتراين ماله وإيكال عرورتي ذا إيكال عريس إنه قفكو أركو نفتاس مركا وحي عشا عجبي إنه إسلو ويناتو وربكوني كم كوها يوها نكا نفتا مركو ساس آمنتد ورقولاد حميد قولاد ساس مركا ليسد أدي أس أمانيسد نفت أبو ميلو حناكو ودا هذه وحلقة دتك إنه والله ننجيسو دتك ندوس كده عين قلهم لكن قطرت هذا لا مركا نعم إذن مركز أكون داشا نفتان إن هذا ولذلك الصدق مع الله وحكون حلو الصدق مع النفس والنفط هذا رنت وشك نفط هذا قياني نفط هذا من أنت وحتى وهو وحي أتات إن لا أبور عن روفير وحصوصي وحد وقتا نفط هذا وحي أودنها قبني تذكر كراس وقال عرايو وروحي أودن وي محاو كراس أورتا أنا مدح ونقتد هل صدقت معك reerkaaga waajibkooda ma ka soo baxday reerkaaga oo aad Yurub iyo Canada iyo UK ugu soo tagtay oo aad baarlamaan 3 sano fadhidid oo aad dheed meesha mushaar ka soo diraa reerka mushaar uma baahna reerka xuquuqay kugu leeyihiin reerkaaga maamul weysay waxa arkaysa dad baarlamaaniina kay iyo Muqdisho u dhaxeeya bas reerkoodana Yurub ay jiraan dadku waxay ka fiirinayaan ilmihiisa oo dirsaday ilmihiisa mas'uuliye way kullukum farajul raa'i fi bayti ahli wa mas'uul anhu war meesha iska fadhida ka soo tag xilka iska soo dhiib maxaa xilkaana ilaahay ku weydiinaya كان واضع يعضي ولذلك وحليل فاقد شيء لا يعطي ورين رير كيس صوت ضيعي او رير كيس قبوها يو برلمان وجورا ما فهمنا عليه ولذلك هذا لم يصدق مع النفس نفتي سو بين وشيغ نفتي سو بين وشيغ وحور وحق قبكرا اسوغو تيري ان قبكرين ايو نفتي سو بين وشيغ وحور ومده هاجي كرا marka been baa sheegto ولذلك الصدق مع الله marka hor ilaahi subhanahu wa ta'ala amalka qabanaysid ikhlaas ahaado laakiin عم نفط هذا وين أوجاته من أنت محاتها هذه محاتها ولذلك دكتورة اللي سكشجنا مننا وحولي PhD دكتور هلا له كوبرفسور خان نفسه نفتي سوق خيانة كاس ولذلك صفات كاس منافقين إليه سي وما يخدعون إلا أنفسهم فصفات المنافقين قدعوا أنفسهم محادعي وحولي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا نفط هذه خيانة بس وهم لا يشعرون
maxaa yeelay adiga waxaa umalaysaa dadkan kale oo qabiilka kale ama reerka kale aad dhehaysid war nin professora qabnaa iyo nin xisaabiyaan qabnaa nin waxaan qabnaa rugicaddaa qabnaa dhehaysid waxaa laga yaabaa dadkaas inay bale ay ku keenayaan walidaalika nafta qururay ku gelinaya heer waxaa gaaraysa marka dambe inaad tiraahid aniga waxaan hataa saas la dhegeyn waxa ha dumaan mucaarada naqanaa maxay nafta ku keenaysa inaad mucaarad naqatid oo maslaxa caam ah ka fikirin wadankaas maslaxadiisa ah ka fikirin oo waxa dhan quruurku ay ku gelayso aniga wax ma leediidaha ha duma wadanka mushkil waa marka halkaas uu gaaro walidaalika dunuubta dadka dhan wax dumay dhan adaa lagu qabanaa hadana ومن سن سنة سيئة النبي صلى الله عليه وسلم ورنك جد حن أهر سيادة ومدة جد حن أهر سيادة وعليه فله وزر ووزر من عمل عليه ننكس دين بيجسم القرى ننكس توضد السمري هذا تذكي أو شو جديين صومالي إن يريهين إن فدرال على دقة أو هبين كصوت أفري أو يري صومالي وحكومة بعد كرتا فدرال نبكي فدرال كان عنا يجا القرى دين بيجس ننكس تو فدرال كان كل انتو تذكي كان فدرال القرى ساسوا معنى هذا من سن سنة سيئة هذا أنك هلا إنه إن في ummadda inay nafta ay runta u sheegto oo nafteeda ay qayaanin maxaa yeelay naftaada hadaa qayaantid adigay tahliku kugu ridaysaa waxaa laga yaabaa inay ku geyso meel aan filanaynin waxay ku gelinaysaa waan sheegnay kibri ku gelin kartaa markay nafta kibirto dad waxaa jira hadda aan dhulka daa fariistira aan fariisti karin maxaa dheh kibir wuxuu ku leeyahay maanaa dhul fadhiisanayo war dhulka meesha lagu aasi lahaa wey waxaan daan qadlay nafteedii shaydaan ay ka ahaatay هدان سحنا توفيق إلهي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته